shirkadda Rio ka mid ah shirkadaha sameeya nashqadaha casriga ah isla markaana lahayd nashqada dhismaha casriga ee magaalada Burco ka dhisatay warshada Ilays Enterprise magaalada Burco ayaa ka warbixisay qaabka ay u sameysay dhismahaasi iyagoona tilmaamay dhismayaal kale oo magaalada Burco ka wadaan iyagoona bulshada gobolka Togdheer ku amaanay qaabka ay uga qayb qaataan dhismayaasha cusub ee wada shirkadda Rio warfaa Maxamed Maxamuud oo ku hadlaya afka shirkadda Rio ayaa ka warbixiyay dhismaha Ilays qaabka ay u sameeyeen dhisaynkiisa anigoo ku hadlaya magaca shirkadda Rio Architects inaan ka soo qayb galo xafladan qaaliga ah oo aan matalo shirkadayda Rio sharaf weyn bay tahay sideen wada ognahayba dhismahan waa dhismihii ugu horeeyay ee casriga ahaa ee laga hirgeliyo gobolka dhismayo badan oo Soomaaliland ka jirana oo dhismayoga ugu quruxda badan ee ugu wanaagsan ahna waxyaabo badan buu kaga duwan yahay oo kaga horeeya waxaana taa suurta geliyay madaxda shirkadda Ilays gudoomiye Nuur iyo tiimkiisa oo sidoo Cabdiraxmaan sheegay gudoomiyaha Najax niman waayo arag ah oo waxgarad ah oo aad iyo aad maskaxdoodu ay u shaqeyso waayo dadkeenu marka ay wax dhisayaan waxay ka fikiraan sida ugu jaban waxay ka oranayaan mostly marka ay noo yimaadaan dadku waxay dhahdaan waxaan doonaynaa design qurux badan oo maxaa la yiraahdaa casri ah oo laakiin si lacag yar lagu dhiso taasi suurtagal ma aha waxa weeyaan shay walba waxa weeyaan dadkeenu waxay doonaan shay jaban oo quality-giisu ay liidato yani lacag jaban inay ku dhisaan laakiin shay kasta oo dhismahan galay wuxuu ahaa shay quality-giisu uu aad iyo aad u sareeyo dhismahan markii aanu ka shaqeynaynay way ka duwaneed qaabkaan uga shaqeynay qaabka dhismayoga kale waayo waanu kala jabinay mashruucan dhowr qaab baa loo kala jabiyay waxa weeyaan structure-ka oo kale waxa taagtay shirkadda Najax construction structure-ka dhismaha taagtay finishes-ka shirkad gaar ah ka shaqeysay oo iyaguna aqoon u leh qaabka loo sameeyo farshaxanimadan iyo waxyaabahan ku jira meesha design-kii guud ee hore maaha design dambaanu sameynay oo interior design ah materialka gurigan galaya dhamaantood waa la wada keenay oo dibadda laga wada keenay material aad quality-goodu u sareeyo yani daaqadaha ku jira markaad eegtid company gaar ah oo aan wadanka ka shaqeyn oo Turkiga ayaa yimid oo u yimid gurigan oo kaliya oo daaqadaha xidhay dabeetana noqday markii laga tijaabiyay marka waxa weeyaan shay waliba wuxuu ahaa shay quality-giisu uu ka duwan yahay quality-ga wadanka markaad eegto wajhada guriga كمان فوقانين culture كيني يكون تجسكي برعو دقيقة قروح بدنا برعو وان استعمال سوى اسمه عصر وياهي اللهم صل على محمد هذا نوع contemporary وجوده سوى كعصر السنة هاي اسمه يوه كله وحويان لفت جو كلمة هو اسمه وجوه الرئي محل الرحضاية الله سميه basement underground برعو أما قبل خلاص سميه واسمه وجوه الرئي basement ياشا markii aan qodaynay laga shaqeynay meesha dadku halkan waa loo daawashay iman jiray marka alxamdulillah wuxuu noogu dhamaaday dhismahani wuxuu noogu dhamaaday si wanaagsan oo smooth ah ayuu noogu dhamaaday inkastoo ay adag tahay manage gareynta dhowr shay oo kala duwan oo meel la isugu keenay haddana si smooth ah ayuu noogu dhamaaday waxaananu aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa shirkadda Ilays oo noo siisay يعني فرصتنا سيسي قالقة إننا كشقينه كانوا كلنا ما هي أنا وجارهان أد بانو تعالى برعينا كشقي واي الرئي برعو ديزاين كان نصوص ما ينو حيسكت يعني إن أي هل كيسة دجان أو حنورك الرئي هرجيسة يو قبل هذا كلام بكرسي حريصين هيبا اسمه يوجا أنا برعو كشقينه حكم ذا ومساجد كان كسهور كذا اسمه الوضع وضياشة نوريو مساجد كان مسجد الهدى مساجد كان وين إلى هيكو oo isagana dhismo casri ah isna aanu ka soo wadno magaalada oo ay odayaashii hay'aduna inala fadhiyaan shirkadda leerka u shida Burco Horyal Hospital marka yaani mashaariicda Burco laga sameeyaa mostly waxay ku dadaalaan contractorska ka shaqeeya in ay keenaan design-ka oo ay yara ignore gareeyaan dadka reer Hargeysa taasina waa mid aan gobolka ku amaanayo Maxamed Saciid Gaxnug telefishinka caalamiga ee Badda Cas Burco